marna ma ku dhacday inaad ku xanibanto koorsada online-ka ah ee programming-ka wax badanna aad ka fahmi kari weydo in badan oo inaga mid ahi mar uun caqabadani wayna soo wajahday koorsada online-ka ahi waa kuwa waxtar leh mise waxay raacaan curriculum cayiman iyo base cayiman dhammaanteedna waynu kala duwannahay dadka qaar waxay wax ku bartaan si dhaqso leh kuwana waxay u baahan yihiin waqti si u fahmaan konsabtida qaab markaasoo kalena way adkaanaysaa in la sameeyo courses match garanaya labadaasi qof haddaba ka waran haddiinu heli karno macallin qof kasta ula macaamilaya doonitaankiisa markastaad heli karto kuu sharixi kara wax kastood u baahan tahay weliba qaabkaad ugu baahan tahay kulana xalin kara caqabadaha ka hor imaada nasi wanaag waxaynu joognaa casrigii AI-ga waana suurtagal inaynu helno macallinkaasi kusoo dhawaa dhalinyaro muuqaalkeena maanta aynu kusoo qaadan doonno sida AI-ga uga adeegsan karto inaad ku barato khaasatan programming-ka sidaynu la wada soconno artificial intelligence aad ayuu horumarayaa xilligan waxaanu wax badan ka bedelay qaabkii aanu waxbaran jirnay ChatGPT cloud iyo toolska la midka ahina waxay noo soo kordhiyeen qaab cajiib ah aynu ku fahmi karno una baran karno programming-ka iyagoo qof kasta oo macaamilaya qaabkuu doonayo ee wax ku fahmi karo dhanka kale adeegsiga AI-gu iyo inaad u adeegsan karto macallin ahaan waxay u baahanta inaad taqaano qaabkaad wax weydiin lahayd haddaynu tusaale ahaan soo qaadano ChatGPT marar badan waxay soo xusnay in awoodda ChatGPT ay ku jirto promptiga iyo qaabkaad wax weydiinayso waxaad samaysan kartaa prompt aad ChatGPT ugu sharaxayso qaabkaad jeclaan lahayd inuu kugu sharaxo konseptyada aad rabto sidoo kale waxaad adeegsan kartaa promptigan aanu diyaarinay adigoo halkaani ku bedelanaya mawduuca aad rabto promptigan waxuu ChatGPT noogu sheegayaa inuu inabaro luqad programming ama mawduuc maalin kasta qayb ka mid ah uuna inoo go'aamiyo halkay tahayna maalinkaasi ku ekaano ee cashirka inoogu joogayo waxuu sidoo kale ina siinayaa exercises meelaha ku habboon maalin kasta markaad soo gasho chatkan waxaad ku qoraysaa next kadibna cashirkii ku xigay ayaad qaadanaysaa haddii aad maalintii 2 ama 3 shil qaadan kartana waa okay oo waxaad ku qoraysaa next si uu sii wado waxbarashadu maaha keliya inaad fahamtid waxaad baranayso waxaa sidoo kale aad muhiim u ah inaad apply garayso waxaad baratay taasina waa sababtay marka hore muhiim ku tahay inaad barato asaasiyaadka luqadaha programming-ka amaba wax kastoo aad baranayso uma baahnid muhiimna maaha inaad wax kasta ka barato luqadaasi adeegso qaadada ah inaad baratid 20% luqadaasi 80ka harayna aad ku gaari karto practice-ka samayso 20%kaasi waa asaasiyaadka luqadaasi ku dhisan tahay ay muhiimka tahay inaad waqti badan geliso this projectyo muhiimna maaha inuu noqdo kuwa waaweyn waxaad dhisi kartaa calculator ama games simple ah xasuusnow waxaad fikrado aad u badan oo ku biskaraysan qaabka aad wax barato iyo waxyaaba aad xiisaynayso ka heli kartaa AI-ga adigoo weydiisanaya inuu qiimeeyo heerkaaga iyo waxyaabaad soo baratay kadibna ku siiyo projectska kugu habboon ee aad ku dhisi karto luqadaas ama conceptkaas programming ee aad baratay ha ka cabsan hana ku niyad jabin markaad caqabad ka hor imaadaan waa mid ka mid ah waxyaabaha aad sida weyn ugu dhisi karto xirfadda programming-ka inaad xaliso errorska iyo caqabadaha kugu yimaada isla taasina waad u adeegsan kartaa AI-ga adigoo ka dalbanaya inuu kula xaliyo errorska ama waxaad samayn kartaa inaad ku dhaxdo xilli aad taysii qish yar oo saabsiisan sidaan u xalin karo erkan iyo macluumaadkiisa inta kalena aad adigu dhammaystirato taas waxay ku ogolaanaysaa in erkan ama caqabadan aad wax badan ka barato marna aad xaliso marna AI kula xaliyo laga yaabe in mar dambe haddii errors noocan oo kale ah kugu yimaadaan aad keligaa wada xalisan karto ugu dambayn markaad dhammaysato course ama cashiraad ka baratay AI marka laga yimaado mawduucaas aad baratay waxaad sidoo kale ku baratay qaabkii kugu habboonaa waxaad baratay sidaad adeegsan lahayd tool cusub markaad programming-ka u baratid qaabkaad jeceshahayna waxaad dareemi doontaa curiosity aad xiisaynayso inaad wax badan kasii ogaato oo aad kasii baratid programming-ka u adeegso AI-ga saad qorshayso qaabkaad u baran lahayd luqad cusub oo programming ah kadibna arag si uu isu bedelo fahamkaaga ku aadan programming-ka muuqaalkiina maanta intaas ayuu ku egyahay description-ka muuqaalkan waxaad ka helaysaa prompts aanu diyaarinay kuwaasoo kaa caawinaya barashada programming-ka markaad adeegsanayso AI-ga waxaa xusid mudan in dhammaantood ay ku qoran yihiin English maadaama waxyaabo badan programming ku saabsan aan la Soomaaliyeyn karayn xitaa haddii aad rabto luqadda Englishta waad ka baran kartaa AI-ga taasi ku saabsanna waxaad ka helaysaa qaybta description-ka marna AI-ga wax ma ka baratay aragtada nugula wadaag qaybta commentiga mahadsanid